السلام عليكم نعيم شرف سير ان شاء الله walaalyaal waxa arkaysaan videogaas u jeedaa saaka arkay gabadha aan aqoon uma lihi laakiin just waxaan rabaa si guud inaan uga hadlo dumarka Soomaaliyeed oo ciyaalka haysto oo dagaalamayo dhibaatada markay qurbahan la yimaado Soomaaliya ma joogto Soomaaliya la isdagaalo saddex takhraal iska tagi jiray laakiin halkaan to the point oo ilmaha lagaga qaadan karo dhowr bilood ka hor waa arkayseen wiil Soomaaliyeed oo wareysanayo gabar Soomaaliyeed oo Jarmalka joogto meesha gabadhan ay joogto oo saddex ciyaal haysatay dagaalantay ilmihiina laga qaaday idan liiri waa lagu diraya ooyeyso dhahays hal caawiyo u jeeday yani sometimes waxa gacantaad ku geysatid oo aadan ka fiirsan qof weyn marka tahay mas'uul aata ilmana aan mas'uul ka tahay waxa fiican inaa waxaas filanaysa ama sameynaysa aad ka fiirsatid wadankan aad joogto sharci uu leeyahay qofkan haduu ku dhibaateena u dhib kugu haayo booliiska u wac hadduu saas kugu deen waayo war maxkamadda tag warqad waxaa jirta strain oo dhan la dhaho oo qof ku soo dhawaan karin sharciga umar qofkan anaga waxaan nahay dad Soomaali ah oo aad ugu faana violent-ka oo jecel oo waxaan dila waxbaan jijibina waxaan dadka wadamadan aan u nimaanayna waa wadamo maaragtay peaceful ah xaafadda ay ka buuq yar tahay oo ka dagaal yar tahay ayaa ilmahaaga la dagaa oo lagu korsadaa ma fahanday marka walaalyaal insha Allah hooyooyin hadaa tihiin ama kulligeenba aan hooyooyin nahay waxa wanaagsan in wax actionka aan sameynayno ilmaha lagu dayanayo ma fahan hadda hooyo dhan oo gacan ka jaban fiir oo la isugu tagay dhibaato kaaga imaan karto ishaal ma arki laga soo ridi kara madaxa laga kala jeexi kara marka qatar waa waxa waay ful iska noqo banaankaaga iska mar waxaana tala guud dadka siinaya xaafadaha oo hostel iska galgalay Soomaalidu ku badan tahay walaalyaal iska fogaada in yar insha Allah wadankaanay magaaladan hadda waxaan deganahay dhowr 20 sano waligay qof af xataa isku ma gaarin why because xaafadaha iyo meelaha kuma badagaba ma fahanti waxa waay banaankiisa maradiisa geed ma qabo kale waxa waay la saaxiibka dumarka tirada badan leh iyo shirshirinta dumarka tirada badan leh dhibaato waxa ahay kaaga ma imaanayso ma garatay dumarka shirshirintooda tirada badan wax fiican ma ahan sirtaadana waxa waa inta afkaaga ku jirto ayay amaankaaga tahay dumarkan hadda maxay isku dagaalayna u maleynaysaa wax waa la saacay dad saaxiibo ah la isdila ma fahmino oo waxa waay secretkaaga intuu adi afkaaga ku jiro ayuu amaan yahay dumarkan sirtaada ha qof dhifa mooyaane sirtaada ha ku amaanaysanin xoog dadkan ha ugu dardarsanin marka insha Allah walaalyaal gabadhaas arkaysa dibka soo gaar waa ka xumahay laakiin waxaan ka waantooba dhibaato weyn ah kaaga imaan karto in guri aan laga kareena kaaga imaan karto in sharciga aan lagu siina kaaga imaan karto in ma aragto qof waalan oo violent ah record lagu galiya kaaga imaan karto marka insha Allah magaci Soomaaliyeedna de waa wadataan Soomaaliyeed dad dagaalanto violent oo dhibaato badan meel walba aan tagnana looga sheegaa ma garatay marka insha Allah ku quus qaata gabadhaas waa u jeedin miskiintaas waxa ku